waxa uu ku yidhi goor uu booqasho ugu yimi wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanku ee magaciisu ahaa Henry Kissinger goortaasi oo kula kulmay boqor Faisal magaalada Jeddah sanadkii 1973 isagoo doonayay inuu kala hadlo arrimo ku saabsan shidaalka kadibna waxa uu doonay inuu hadal u furo waxaanu ku yidhi diyaaradaydu waxay u dhaqaaqi laadahay shidaal la'aan awgeed boqortooyadaadu ma noogu amri kartaa inay shidaalna siiyaan anaguna waxaan diyaar u ahay qiimo kasta inaan dhiibo sidaasaanu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee Kissinger ee dalka Mareykanka kuma qoslin boqorku laakiin madaxiisa kor u qaaday waxaanu ku yidhi anigu waxaan ahay qof aad u weyn oo da' waxaanan hamiga ku hayaa intaanan dhiman ka hor inaan 2 ragcadood ku soo tukado Masjidul Aqsa waa intaanay tayda noqon marka adiguna riyadaydaasi inay ii rimowdo ma igu garab galaysaa haddii aad halka ku sugan tihiin iminka yaa dhahaya carabtu waxay ogolaadeen go'aamadii qaramada midoobay annagoo weliba ku gacan seedhi karna oo bahdili karna maxaa yeelay anaguna walaalahayow haddii aan ogolaanno go'aamada qaramada midoobay waxay ka dhigan tahay inaan aqoonsanay dawladda Yuhuuda maxaa yeelay qaramada midoobay ayaa iyaga aqoonsan waxa sida yiri Allah u naxariistay boqor Faisal oo ahaa boqorkii dalka Sacuudiga kaasoo bahdilad weyn u geystay Mareykanka iyo xulafadiisa aadna uga soo horjeeday qabsashada ay Yuhuuddu haysato dhulka Falastiin dadaal badan iyo juhdiba ku bixiyay sidii looga hortagi lahaa fiditaanka ay isku fidinayso Yuhuuddu dhulka Falastiin waxa uu ahaa geesi aan gabasho lahayn boqor Faisal Ilaahay u naxariistay